bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ayaa saaka u dareertay tukashada salaada Ciidul Adha waxaana isugu yimaadeen garoonka Buursade oo loogu talagalay ama loo qoondeeyay inay ku tukato bulshadu salaada Ciida waxaana kala soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera salaada kadibna waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdikariim Aadan Saciid duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxayna dhamaantood hambalyo u direen shacabka reer Soomaaliland culimadu sheegtay udxiyada kulay waa la sheegay maanta oo kale in dadka laga baraarujiyo sida sunnaha nabiga udxiyada waxa kale oo jirta oo insha Allah taala u duceynana dad kamida mas'uuliyiinteena ama madaxdeeni oo uu kamid yahay taliyihii qaybta inay noo duceynay iyo barasaab ku xigeenkii waxa jirta walaalayaal oo aynu doonayna maanta maalinta ciida inaynu ducada raacino waxa ka jirta waxoogaa shaqooyin baa gobolkeena ka dhacday oo ay muddo bilaa imika ku maqnaayeen oo ku shaabnaayeen xanuunkii aafadaha ee COVID-19 oo dalka ka yaraaday inkastoo wali jiro inaynu si sharaf iyo karaamo leh ugu ciidno garoonka weynaa ee magaalada Berbera ciida Ciidul Adha ee sanadkan marka ugu horeysa waxaan hambalyo u diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marwooyinkiisa madaxweynaha ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan dadweynaha reer Soomaaliland bulshada reer Berbera iyo reer Saaxil waxaan leenahay ku ciida caafimaadsan ilaahay nabadgelyo ha inooga dhigo aad iyo aad baa mahadsantiin runtii farxad weyn way inoo tahay ay diinteena farayso takbiirta iyo xamdiga labadaba inaan israacino in ilaahay weyneyno oo aynu ku celcelino ma halkan markaan joogno kaliye markaad guriga tagayso iyo marka dariiqa marayso iyo marka salaadaha ka baxasaba waa ina takbiirta ilaahay weynayntiisa wayna ku celcelinaa waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah mid yar iyo mid weyn maanta waa maalinta ay diintu fasaxayso in laga soo saaro carruurta guryaha laga soo saaro in qof kastaaba uu farxo dadka reer Berbera ee gobolkan ku nool waxay nasiib u heleen in maalmaha ciida iyo maalmaha farxadda loo soo hiloobo oo ay gobolada kale u soo hiloobaan oo ay u soo tacabiraan ka yimaadaan ama Laascaanood ka yimaado ama Boorama ka yimaado ama Hargeysa ka yimaado ama Burco ka yimaado waa gobol loo soo hiloobayo oo dad faraxsan ay noo imanayaan koow dadka faraxsan oo la soo dhaweeyaa qalbi furan waa in lagu soo dhaweeyaa soo dhaweyn fiican waa in lagu soo dhaweeyaa xuquuqday ku leeyihiin walaalaha dhalinyarada la hadlaya dhalinyarta isdhexgal baa la sameeyaa dadka la bartaa gabagabadii waxaa isagoo halkaasi hadal ka soo jeediyay barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan guud ahaanba gobolka Saaxil inay ilaaliyaan amniga isla markaana meel ay uga soo wada jeestaan cid kasta oo qalqalgelinaysa amnigoodaasi barasaabku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka warbixiyay safar shaqo oo maalmihii u dambeeyay ay ku aadeen deegaanada bari ee gobolka Saaxil oo shaqaaqo ay ka jirtay isla markaana ay ku direereen laba beelood oo walaalahay waan idinku cusubahay intaaba waxaan ku mashquulsanaa arrimo nabadgelyo kullay waad isleedihiin gudoomiyaasha maxay halkii ka keeneen waxaan doonayaa inaan brief yar idinka sii siiyo oo aan nabadgelyada meeshii aanu tagnay aan idin sheego waxa weeyaan runtii meel fiican baanu kaga nimid arrimihii halkaa yaalay waanu soo dhammaynay dadkii walaalaha ahaa gacmaha la isku saaray arrimahoodu xaalad nabadgelyo oo fiican ayaanu kaga nimid hal mar oo aanu maalin ku maqnaan doono oo go'aan yar oo ku harsanaa culimadiinka iyo caaqilada iyo salaadiintii nala shaqaynayay oo aan runtii aad ugu mahad celinayo ayaanu hal maalin u noqon doonaa taa warkeedu waa taas waxaan doonayay dadka gobolka inoo degan dhammaantood inaan ku dardaaro inay nabadgelyada inoo adkeeyaan oo aynu xukuumadeennana la shaqayno oo ay had iyo jeer wixii ay dareemaan ee lidda ku ah nabadgelyada ay soo sheegaan oonu ka wada shaqayno bulshadan haddaba ku kulantay saaka gudashada salaada Ciidul Adha ayaa wajiyada waxaa laga dheehanayay farxad waxayna isugu hambalyeynayeen erga ay ka mid ahaayeen ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr maariyo hore dekada Berbera Cali Cumar Maxamed علي حرحر أو يسوق كم إذا هذا دويني هالكاسي كنت كذي يوحهم بليو دري جودهم بس شعب كردقان الصومالي لين كرهنا قبل كساحل. وعيد الأضحى سنة 2020 وحنفيلا يا الصومالي لأن واحد كسود دكتي كوفيد 19 كي إلى هو نجنا بتجريه وحيا قالوا
dhibaato ka qabsatay innaka ilaahay uu naga nabadgeliyey waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadle waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland waxaan salaamayaa madaxweynahooda iyo dawladdiisa waxaan kaloo salaamayaa reerahayga xaasaska inamada iyo inamada sii dhaleen iyo dhammaan ehelkii asxaabta iyo qolada saxaafadda qolada halkan la joogta iyo kuwa maqanba وعبد الرشيد مبارك عبدي عبد الرشيد سول سم نيوز تي في بربرة